noloshu waxay bartay intii waxaan ku siinayaa laba talo oo dhaxalgala computerka oo kale marka shaqadiisa loogu talagalay oo dhamaysto waa la baqtiya adigana sidoo kale assalaamu calaykum ramadaan wanaagsan qorshuhu waa shayga kaliya ee haddii aad barato ka dhigaya qofkii aad doonaysay inaad noqoto laga yaabaa inaad hore aad u aragtay barnaamijyo ka sheekeynaya qaabka qorshaha loo samaysto way ugu caansan tahay qorshayaasha sanadka qaabka loo sameeyo qorshayaasha bilaha laakiin maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay waa qorshaha toddobaadlaha nasiib darro dadku markay qorsho dhigtaan waxaynu aragnaa in badan oo kamid ah wixii ay qorshaysteen inaynu ku dhaqmin taasi oo loo sababeeyo arrimo kala duwan waxyaabaha ugu caansan ee qofka ku keena inuu qorshihii uu samaystay uu ku dhaqmi waayo waxaa kamid ah inuu qofka uu waqtigu aad ugu dheeraado oo marka uu qorsheeyo sanad waa muddo aad u fog ama bil laakiin marka ay noqoto qorshaha toddobaadka sababaha aynu dooranay waxaa kamid ah waa shay aad u kooban mar walbana soo noqnoqonaya macnaha toddobaadku waa wax kooban oo qorshihiisa marka aad samaysato inta aad ku xaqiijinaysay waa muddo kooban sidoo kalena waa shay kugu soo laalaabanaya mar walba marka maanta mawduuceena xalqadan waxa uu ka hadlayaa qaabka loo sameeyo qorshaha toddobaadka noloshu waxay bartay haddii aad ka adkaato toddobaadkaaga waxa ay ka dhigan tahay inaad si wacan u maareysay noloshaadii su-aashu haddaba waxay tahay sidee loo sameeyaa qorshaha toddobaadka intii mawduucan aan baadhayay qofkii ugu fiicnaa ee ka hadlay waa nin masriya oo magaciisa la yidhaahdo axmed abu zayd waana nin baraha bulshada wax kusoo gudbiya qorshaha toddobaadka marka aad samaynayso waxa aad qaadaysaa 4 tallaabo qodobka koowaad waxaa loo baahan yahay in dhammaan maalimihii toddobaadku ay hortaada yaalaan si qodobka aad u fuliso kaliya waxaad u baahan tahay warqad iyo qalin aad ku diyaarsato warqadda sidan oo kale aad samaysan kartaa haddii kale oo tan lafteeda aad u baahan tahay in commentka ugu horeeyo ayaan idiin soo dhigi doonaa si aad uga download garaysato qodobka labaad waxaa loo baahan yahay inaad isweydiiso waxa aad jeceshahay inaad xaqiijiso toddobaadka oo dhan kana fogow inaad aad iskugu badiso iminka tusaale ahaan waa ramadaan waxyaabaha ugu badan dadku ay qorshaystaan waxaa kamid ah kow inay quraan uu qofku akhriyo marka inta ugu badan marka toddobaadka la qorsheynayo waxaa la qorsheeyaa 6 maalmood oo kaliya maalinta soo hadhay waan sheegi doonaa waxaynu ugu talagalnay marka toddobaadkaas haddaad maalin walba aad ku talagashan tahay juz inaad akhrido macnaheedu waxay ka dhigan tahay toddobaadka waxaa kuu qorshaysan 6 juz oo quraan ah waxyaabaha aad qorshaysan karta waxaa kamid ah faa'iidada leh in toddobaadka gudaheega aad akhrido 60 page waa maalintiiba 10 page book faa'iido leh tusaale ahaan anigoo kale waxay qorshaysan in 5 maalmood oo kamid ah toddobaadka aan duubo muuqaal oo aan soo geliyo duruus laga faa'iideysta waxyaabaha tusaale ahaan toddobaadkan oo kale qorshaysan waxaa kamid ah xafiiskaygan inaan muxuu ahaye aan kala habeeyo macnaha aan soo on saasaad u wadaysaa qorshayaasha wixii aslada toddobaadkaa wad qaban kartaa ayaad hal meel aad iskugu keenaysaa iskana ilaali inaad isku badiso waxaad haysataa keliyata waa 6 maalmood qodobka saddexaad qorshayaasha sidaa aad usoo samaysay ee kala duwanaa waxaad maalinkii ka dooranaysaa ugu badnaan 3 shay oo kaliya iminkaana waxaan soo qorsheeyay 7 ilaa 10 shay oo kala duwan maalinka aad ugu badan tahay waxaa la doonayaa inaad ka soo qaadato 3 arrimood oo kaliya waxa laga yaabaa inaad tiraahdo marka 3 qodob lagu yiraahdo kugu badan tahay laakiin talaha waxaan kugu siinayaa inaanad marnaba dhaafinin 3 shay oo kaliya qodobka afraad ee ugu dambeeya habeenkii intaanad seexanin ama subaxa hore marka aad soo kacdo waxaa loo baahan yahay inaad qiimeyn isku samayso macnaha maanta 3 shay ama 4 shay ee ii yaallay ee aan doortay maxaan ka xaqiijiyay haddaad 2 ka mid ah qabatay aad baad u fiican tahay maalintaa waxay ka dhigan tahay 2 keentay 3 baana laga doonaya inaad keento ama 4 laakiin 2 keentay halkaasuu markaa kugu diyaarsan yahay qorshaha toddobaadku toddobadii cisho markay dhammaato waxaa loo baahan yahay inaad eegto waxa loo yaqaano feedback loopku waxa weeyaan waa inaad qiimeyn isku samayn karayso welibana waxaa tala ahaan aan ku siinayaa sida ardayda oo kale inaad imtixaan aad macnaha arday imtixaan gelaya oo kale aad iska soo qaato toddobaadkii marka uu dhammaado wixii taskiskii ama shaqooyinkii ku yaallay oo dhan ayaad hal mar aad qiimeyn ku samaynaysaa waxaana loo baahan yahay inaad qorto 3 shay lambar 1 waxa weeyaan the good toddobaadka maxaa fiicnaayo aad soo aragtay qodobka labaadna waxa weeyaan the bad maxaa xumaay oo toddobaadka ka kharibmay qodobka saddexaadna waxa weeyaan the lessons warqadda macnaha xaggayga dambe cadaanka ayaad intaa ku qoran karaysaa kadibna qiimeyn ayaad toddobaadkaagii aad ku samaynaysaa imisa ayaad ka keentay 10 shaqo hadday ku yaaleen oo aad 6 ka mid qabatay toddobaadka macnaha waxay ka dhigan tahay 60% ayaad haysataa dambeyntii waxaan ku siinayaa 2 talo oo dhaxalgala
talada koobaad waxa weeyaan waxaad aad iyo aad uga fogaataa waxa loo yaqaano inaad noqoto qof over achieving mar walba isku day inaad noqoto qof dhexdhexaada haddii maalinkii saddexdii shaqo ee ku yaalay aad dhammaystirto marna ha ku fikirin shaqo afraad inaad ku darto waxaa jira waxa loo yaqaano shutdown sequence imka computerka oo kale marka shaqadiisii loogu talagalay oo dhammaysto waa la baktiyaa adigana saas oo kale laga doonaya shaqadii haddii aad ugu talagashay aad qabatay shutdown khalaas mar walba iska ilaali inay xamaasada ku qaado oo aad istiraahdo maalinkii kale shaqooyinkii ku yaala qabso intaadii markaad dhammaysato wixii naftaadu jecleed aad iska qabsan karaysaa qofba wax buu jeceliyey qof baa jecel wixii entertainment ah inuu iska daawado film qof baa jecel inuu kubad iska ciyaaro qof walba iyo muxuu ahaay naftiisa qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan ugu dambeyntii waa inaad leedahay maalin nasasho 6 maalmood baad qorsheynaysaa maalinta ugu dambeysa waa nasasho maalinta wax alle iyo wax ku yaalay ma jiraan kaliya waxyaabaha la fudfududa ah inaad wiigaaga qiimeyso inaad siyara eegto waxyaabahaas maahe laakiin wax shaqo ah maalinka ha samaysan marka maalinka fasaxa ka dhiganaysaa waa maalinka aad doorato imkaan oo kale maalinkayga waa maalinka jimcaha sabtida ka dhigan karaysaa xadaad ka dhigan kartaa isniinta maalinkii adiga ay kugu soo hagaagto waa inuu jira maalin fasax aad tahay oo aanad waxba qaban ha u malayn maalinkaas inuu kaa dayacmay laakiin waa maalin muxuu ahaay naftaada ay charge qaadanayso si aad ugu diyaargalowdo toddobaadka ugu dambeyntii mar walba waxaad ku xisaabtamaysaa toddobaadkii hore iyo natiijada aad keentay tusaale ahaan haddaad bilaabaysa maanta oo ay tahay toddobaadkaagii kuugu horreeyey haddii aad ka keento 50% waxa aad tahay qof aad iyo aad u fiican macnaha waxa ka dhiganta dad 10 shaqaad qabsato 5 ka mid aad qabatay 5tii kalena aanad wali qaban aad baad u fiican tahay hore u soco toddobaadka dambe waxaad isku daydaa 60% 65 inaad soo gaadho toddobaadka dambe halka ka sii wad ilaa iyo aad ka gaadhayso 100% laga yaabaa inay adagtay laakiin ilaa 90 95 aad ka gaadhayso waxaan jecelahay toddobaad kadib inaad muuqaalkan aad ku soo noqoto kadibna aad hoosna noogu qorto faallada qaybta hoose inta aad ka keentay toddobaadkaagii ugu horreeyay aad baad u mahadsantihiin A+ Legacy